waxaa muddooyinkii u dambeeyey isa soo tarayay cabasho ballaadhan oo ka soo yeedhaysay dadka danyarta ee ku nool gobolka Togdheer oo ka cabanayay sixir bararka saldheeraada ee ku habsaday oo sababay inay noloshoodu adkaato. dadkan danyarta ayaa u dhegtaagaya in xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu wax ka qabto sixir bararka iyo miciishada maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacaysa. maraan saaka la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen sixir bararka, sidoo kalena baaq u direen madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan rabaa in xukuumadda u sheediyo waxyaalaha ay nagu ballan qaaday. waxaa ka mid ahaa inay sixirka jabiso oo hadduu ebegeliyay doolarka sii kacaya ee maalinba maalinta kadib ka sii daraya ay hoos u dhigto. kama hayno. waxaan aad iyo aad u jecelahay waxa shacabka loogu ballan qaado inay fuliyaan baan xukuumadda ka codsanayna. waxaa la yidhi qofka muslimka ahi waa inuu ku sheegaa qofka muslimka uga qaataa. annagoo shacabkeennii annagoo ah hadduu ku leeyahay dad muwaadiniin ah waxaanu jecelahay in la jabiyo sixirka doolarka iyo maciishada. كل أنا واحد كمية هاي أرض الجامعة المجالات برعاة مجانا واحد مساوي عبدي كردو عن كهلا يسحبرك يسون سامي سحبرك ما خلاه الله يوم برايس فلكتويشن وديسفاليو كل عاي تغاليس كل عاي العشرين كسمالا كنت أعرف تصدق ساقط الصعطة لو ضد طبقات هاسي أبغى واحد صورة جاي ماشي كوب حضبة ويوم حي يلاقي تدكم ما طبقات الحكلية تدكم سكحرين ما دام طبقات هاس مسك بحضة تبشدي قاربة نقانسا مقارنتي طبقات هذا الله يقبل ده سحبرك أنا سيدا وضمن سامبيو يقلي فنقارن هذا مقارنتي مدحونا عصوب حمص تشيدنا يا إن سحبرك الله يقبله إن الصوص سحبرك الله يقبله أنت تخاص الله يقبل شيلك سمالن وعذرك سا وساردها وكالة بيها الله يركا عاد شيء الله يركي مثل عالم قبل يونس عالم مثل الله يوم أرميها أساسي الله يركا كمية الله يركي هاكو حكوا بحنا $100 maxaa laga qaban karaa marka leerka weyn lagu bixiyaa leerka meelaha hoose lagu bixiyaa leerka weyn shaqeeyaa lacagta leerka weyn lagu bixiyaa shilinka Soomaaliland iskuulada goobaha barashada jaamacadaha weyn lagu bixiyaa shilinka Soomaaliland waxaan ka hadlayaa wax dadweynaha dhan quseeya waxaan ka hadlayaa wax dawladda dhex yaal waxaan u leenahay hadii ilaahay ka dhigo hal walba ma hadii ilaahay ka dhigo dunida in hoos loo eego dadka waxay taal daran baa jira waxa xoolii ka baxeen baa jira hadee bakuuray wax magaalada jooga ku baqtiyaa jira hadee bakuuray wax ilaahay ku siiyo maad ka dheregtaa laakiin sixir bararkaan ku hadlayna sixir bararka la jabiyo xood hoos hada loo dhigo hadee bakuuray raashinka haday tahay iyo dharka haday tahay iyo dadka hala eego agoonta danyarta dadka xoolo ka baxeen abaartu soo jiidhay dadka ay taalka aan lahayn ee walba magaalada ku noolay deeymka xooliina ka baxeen waxaan leenahay de wax laga qabto sida dawladda cusub baanu taageerayna tala saaranayna ilaahay baa la tala saartaa laakiin dawladda cusub wax ka qabataanu leenahay qaadkan raggii dilay waxna tageen waxna dilay halka jiifjiifaana taasana wax laga qabto iyo dawladda cusub waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo sixir bararka iyo shilinkii Soomaaliland aad iyo aad u qiimo dhacay. waxaa leeyahay dawladdu iyada ka mas'uul ah lacagteeda $100 oo lacag laado waddanka ayna lahayn. waxaan jeclaan lahaa in qiimaha doolarka oo labadii sarifle isku xigaaba ay laba hadal kala oranayaan inay dawladdu kontrolsho oo ku soo celiso halkeedii. sixir bararkaas oo aanu u aaneynayno ganacsatada waaweyn inay sixir bararka iyagu abuurayaan, waayo maanta halkii laga eegay dawladda cusub inay sixir bararka ay jabiyaan maanta wuxuu marayaa $1,060,000 buu marayaa gacantii dambe. sixir bararka waxaan u aragnaynaa ganacsatada waaweyn baan u aragnaynaa. jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa madaxweyne sixir bararka wuxuu marayaa halkay ugu sarreysay ee maraysa lacagta shilinka Soomaaliland qiimo dhac weyn baa ku dhacay. madaxweyne maalintii aad magacaawday guddida dib u eegista sixir bararka dalka asiibay inay ka soo tala bixiyaan warbixin ka soo daayaan ilaa hadda guddidaasi jaani cirib meel ay dhigeen haba yaratay la garan maayo. خضر عبد الرزاق سليبان خضر هند بولشة TV مقالة برعو.